madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu ka qayb galay munaasabadda soo bandhigida qorshaha 5 sano ee soo socda ee hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland. Munaasabadan oo ka qabsantay Hotel Mansour ee magaalada Hargeysa ayaa sidoo kale waxa ka soo qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland, barsaabka gobolka Muruudajeex, Jaamac Xaaji Axmed Maayirka caasimadda Hargeysa, Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Solteeko, gudoomiyaha hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland Mudane Muuse Xasan Xaaji Yuusuf, agaasimaha hay'adda dhowrista tayada, gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda, hay'adaha kala duwan ee xiriirka leeyahay hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland iyo waliba khubaradii ka gacan siisay hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland diyaarinta qorshaha 5 sano ee ay soo bandhigaysay. Ugu horreyn munaasabadda waxaa ka hadlay oo faahfaahin ka bixiyay qorshaha ay hay'addu soo bandhigayso gudoomiyaha hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland Mudane Muuse Xasan Xaaji Yuusuf. 2014 waxaa sharaf weyn noo ah ka gudi ahaan maanta inaynu daah furayno soo bandhigayno qorshihii ugu horeeyay ee hay'adda dhowrista tayadu ay yeelatay ee 5 sanadood soo socda hadii Ilaahay ka dhigo falilxamdulillah. Ahaantii noqonaya buugga aanu anagu marka ugu horeysa ka gudi ahaan ka shaqaale ahaan aanu isku xisaabin doono, isku qiimeyn doono marlabaadka uu noqonayo ka qaran ahaan mid leenagu qiimeyn doono caalamka intiisa kale la oranayo wadanka Soomaaliland la yiraahdo quality control intee in leeg baa ka jira, standards intee leeg baa ka jira, alaabta laga dhoofinayo dalka iyo alaabta la keenayo cabirkoodu waa maxay. Marka qiimeyntaas oo aanu 5 sanadood soo socda hadii Ilaahay ka dhigo halkan ku soo bandhigi doono ayaanu doonaynaa inaan maanta idin la wadaagno. Hay'addu waa mid kobcinaysa, horumarinaysa dhaqaalaha iyo ganacsiga dalka, waa mid hore u marinaysa kana ilaalinaysa bulshada Soomaaliland wax allaaliye wixii waxyeelaya. Marka anagu waxaan u aragnaa inaanu nahay hay'ad dawliya oo xeer adag leh oo ujeedadeeda ugu horeysa ay tahay horumarka dalka. annagoo taa la shaqaynayna laamaha dawladda ee kala duwan, khaasatan 4 wasaaradood oo mudan oo xeerkana ku qoran oo aan aad ugu mahad celinayo in wasiiradoodina ay nala joogaan. waa wasaaradda caafimaadka, wasaaradda ganacsiga, wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga iyo wasaaradda beeraha. 4 wasaaradood waxaanu lanahay anagu mataano, waayo shaqadii day to day ayaa xiriir dhow inaga dhaxeeya. guud ahaan marka dawladda eegtid waxaan u maleynayaa laan kasta oo dawladda kamida in shaqadeedu ay galayso, haday noqoto standardska ama heertayeedka iyo haday noqoto shaqada qaranka. miisaaniyad aad iyo aad u hooseysa ayaa jirtay. waxaanu ku faraxsanahay uguna mahadnaqaynaa laamaha dawladda, khaasatan madaxweynaha miisaaniyaddii sanadkan 2019 oo afar jeer noo laabantay. taasna run ahaantii waxay ku tusaysaa ahmiyadda hay'addu ay leedahay ee xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi uu siiyay. waana ugu mahad celinaynaa insha Allah gaadhno mustaqbalka dhow wadamada kale aanu rajaynaynaa insha Allah waana na gaari doonaa. shaqaaluhu waa 860, standardda noorka noo diyaarka waa 10, standard committeeska hadda noo jira waa 2, budgetka iyaguna wuu 4 laabmay. iyada aanu haysanay yar baanu horta alxamdulillah leenahay. meesha aanu ku socono laabka accredited-ka Soomaaliland yaalana waa hal laab, waa laabka shidaalka. halka aanu ku socono ayaa meel foga. geestoodayaguna waxaa hadallada isu daba maro xubno ka tirsan komishineerada hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland iyo mas'uuliyiin ka socda ururada ay ku midoobeen ganacsatada daawooyinka iyo warshadleyda. qorshaha aan uga mahad celinayno la sameeyay Patrick oo ka socda dalka Rwanda. sababta aan Patrick oo Rwanda ka socda u dooranay waxa weeye dalka Rwanda waa dal sideena marxaladii ay soo marnay Soomaaliya. waa dal ka soo bilaabay gunta ugu hooseysa. haddii aan ku yeelan lahayn khubaro Jarmal ama Ingiriis ah iyo qolooyinka isku kabababanyihiin, laakiin Rwanda maalinba halka ay maraysay maanta waa dalka labaad ee qaaradda Afrika ugu fiican xagga quality control-ka. waxaan u hambaleynayaa guddida dhowrista tayada iyo gudoomiyahooda iyo shaqaalaha oo soo bandhigay qorshe wax ku ool ah oo ay leedahay yeelan doonto 5 sano soo socda hay'adda dhowrista tayada.
intii ay munaasabadda socoto waxaa halkaasi kusoo bandhigay habkii loo diyaariyey qorshaha 5 sano ee hay-adda dhowrsatada Somaliland ay soo bandhigaysay khabiirkii isagu qaybta weyn ka qaatay diyaarinta qorshahani. sidoo kale munaasabadda waxaa ka hadlay agaasimaha rugta ganacsiga Somaliland. waxaan u rajaynayaa inay ka soo baxaan qorshe waxtar u leh dalkeena iyo dadkeena. hay'adda dhowrista tayadu waxay qorshahan soo bandhigtay muddadii ay ka shaqeynaysay ganacsatada reer Somaliland. runtii annaga madasha u sameynay waanu ka doodnay si fiican oo aad u fiican baa loo bilaabay waana la isla afkartay. wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Somaliland Liibaan Yuusuf Cismaan iyo wasiirka xiriirka golayaasha dastuurka Maxamed Xaaji Aadan Cilmi ayaa labadoodba hoosta ka xariiqay ahmiyadda ay qaranka ugu fadhido hay'adda dhowrista tayadu. wasaaradda horumarinta caafimaadka qaranku aad iyo aad u soo dhaweynaysaa qorshahan ay soo bandhigtay maanta ee 5 sanadood hay'adda dhowrista tayada. waayo qorshe la'aan muxuu hayay waa arrin la'aan hay'addu waxay noo muujinaysaa inay jirto meel ay u socoto. runtii waxa weeyaan waxaad moodaa hay'addani inaanay wasaaradba ka marnayn oo hay'adna ka marnayn, waayo waxay mas'uul ka tahay wax taabanaya qof kasta oo bashara oo Somaliland jooga oo aynu adduunka la wadaagno wax kasta oo aynu adduunka u dirano intaba. haddii ay sidaa tahay waa mas'uuliyad aad iyo aad u ballaaran ka wasaarad ahaan. annagu runtii waxaa naga quseeya dhammaanba wixii xeerarka iyo shuruucda ku saabsan ee waxa weeyaan quseeya hay'addan oo taasoo aad u fara badan. ugu dambeynna madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo goobta ka hadlay waxa uu ku dheeraaday muhiimadda ay qaranka ugu fadhido hay'adda dhowrsatada Somaliland. madaxweyne Biixi ayaa hay'adda ku bogaadiyey soo bandhigidda qorshada 5 sano ee soo socda ee ay soo bandhigeen. shirkan waa shir hawleed waa kulay isugu yimid inaynu qorshihii 5 sano ee hay'adda dhowrista tayada aanu ku daafurno. hay-adda shaqada qabato waxaa taabtay guddoomiyaheeda wuxuuna ugu muhiimsan inay ilaaliso caafimaadka guud ee dadka iyo qalabista meelo badan way taabataa cunto dhar waxa guriga lagu isticmaalo. waa ogtihiin oo iminka dhakhtaradeen haddaad waraysato waxayna u soo farabatay cudurka kansarka oo loo marinayo inuu ka yimaado cuntada aynu cunno qaar ka mid ah oo aan ku habboonayn in bini'aadamku cuno. carruurta ha u badnaadeen dadka waaweyne waxaa la yidhaahdo xasaasiyadda ama sanboorka oo loo tarinayo qalabkaynu guryaha dhigano iyo bahashaan dawooyinkan ku buufino guryaha iyo qalabkaynu dhigano loo tirinayo. waxaa ka muuqataa da'deenna yar inay wax iska bedeleen qaab nololeedkeennii iyo cuntadeennii. waxaa loo baahan yahay markaa in hay-addani aan xoog badan saaro si loo ilaaliyo tayada waxaynu cunayno, waxaynu huwanayno, waxaynu goblanayno iyo qalabkan isticmaalno. waxaa ka mid ah shidaalka oo aad ogtihiin dhibaatada ka jirta gaarigaashana wadana aanay gaadhin rubuc cimriga baabuurta kale ee dalka lagu wata. waxaanu ku hambalyeynaa qorshahan iyo hawshaynta iyo dadaalka ay qabteen waanaynu garab gelaynaa. qaybihii kala duwanaa ee ka soo qayb galay munaasabadda soo bandhigidda qorshaha 5 sano ee soo socda ee hay'adda dhowrsatada Somaliland ayaa halkaasi su'aalo ku weydiiyey mas'uuliyiinta hay'adda ku aadan qorshahooda. gudoomiyaha hay'adda dhowrsatada Somaliland mudane Muuse Xasan Xaaji Yuusuf ayaa su'aalahaasi kala duwan si waafiya uga jawaabay. Luqmaan Maxamed Faarax, Bulsho TV, Hargeysa.